السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام الدمان ومد الصوماليات ميلة جوجتان بوايد السلامي سلامتي إسلام كان يدكو السلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa la yidhi labada maaragtay xaq darada ku heshiiya xaqay ku diriraan waa run jaajuusiintii waa kuwa waxay marba maxay tanay marba warqad maxay tanay soo saaraan marba geed isku qaadaan waa kuwa maanta kala dalway waa kuwa maanta kala cararay waa kuwa maanta haadgeed waay noqday alxamdulillaah rabbil caalamiin ma hadaana ilaahay baa iska leh ilaahay baana ugu shukri naqaynaa ilaahay baana ma hadaasoo dhan iskale iyo guusha madaxweyne farmaajo waa daacad waa madaxweyne daacada waa madaxweyne daacadnimo ku shaqaynaya waa madaxweyne doonaya in dadkiisa iyo dalkiisa uu horumar gaarsiiyo sida maxay tani adduunka maxay tani looga noolyahay ay ula noolaadaan laakiin jaajuusiintani iyagu calooshooda uun waxay ku guri lahaayeen meel ay guriga qurux badan ka dhisan lahaayeen intaa ayay ku fikiraan dad ay dilaan maxay ahayd dabin ay qoolaan masuubo ay sidaa u kala maleegaan mooyaane waxaan kuli wax kale oo ay maxay tani ay raadinayaan ma jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa horta ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga qabto oo ummadda islaamiyeed ka qabto anigu saacadan anigu ma joogo Soomaaliya laakiin waxaan u naxayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u naxayaa caruuraha Soomaaliyeed waxaan u naxayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee ay maxay hayteen ku duldheelayaan caruurahoodii ma joogaan adduunkay waxaan ku yiri jaamacada saa lacagta uga dhiibaan jaamacadaha ugu qaalisan ayay dhigtaan caruurahoodu kuwa kalena inay adeegsadaan bay doonayaan miday qarax u dhiibaan miday maxay hayteen mission kale ku diraan oo yiraahdaan ordo qof meel maraya soo dil ordo maxay hayteen belo walba orod bamba meel dhig waxaasay ka shaqeeyaan 24 saacadood waqti ilaahay waxbaan dilaynaa day waa kuwa dilay horta ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa saraakiisha halka lagu laayay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannatul firdaws a'la oo ku hirsaqo in kitaabkooda midigta ilaahay ka siiyo gacan ka xaq daran baa dishay ehelkoodii iyo ummadda Soomaaliyeed ay u shaqeynayeen dhamaantood uu samriye iimaan ka siiyo nimanka kan adduunka hadaan la iska qabanin wax dhah maxay tin hagaagaya ma jirta teeda kale waxa la yiri gardarra garba og waa sida maxay tin jaajuusiinta bal iyagoo ay arkaan oo ay wadankii maxay tin rabaan inay gataan oo Kenya dabada ku wataan oo Imaaraadka dabada ku wataan baa qabiil lagu taageeraya bal dad dalkoodii iyo dadkoodii la dhacayo oo waxaan ku yiri haddana aan fahmayn adduunyada Soomaali baa laga dhaxelaa adduunyada wadamada kale waxaan ku yiri way ku qanacsan yihiin way ku faraxsan yihiin waxaan ku yiri laakiin wadankooda kuma qanacsana kuma faraxsana wadamada dadka maxay tin aad ku faraxsantiin aad ku qanacsantiin aad u soo kala qaxaysaan heede dad idin la mid ah dhistay shacab baa dhistay dawlad kaliya wax uma dhisi karto shacab iyo dawlad baa dhistay kala dambeyn bay ku nool yihiin iyaga oo aan diin leh maxay tin diinta islaamka haysanin oo diintooda haysta ayay haddana qowniino ay iyagu samaysteen iyo maxay hayteen si maxaa ahaa ay ku kala maxay tin ay ku kala baarkiisa yihiin ay ku kala dambeeyaan oo qofna shaqada loo idmaday qof kale kuma soo xadgudbo laakiin Soomaali saasay soo dabadaba baqlaysaa wax iskama dhageysato kooda wax garanaya ee maxay tani hagaajinaya na saasay baqmaha uga goostaan baqmaha isaa uga cunaan saa uga xagtaan oo inuu talaabo dhaqaajiyo ma ogola waxaad arkaysaa markaad daawatid YouTube-ka ama maxay tiri Facebook-ka dad caytamaya oo madaxweynaha caaya adduunyada caalamka lama arag lamana maqal Soomaali mooyaan dad mas'uulkoodii iyo madaxweynahooda caaya halkaasay waxaan ku yiri ay maxay tiri kala dambeyn iyo ixtiraam ay ka taagan yihiin Soomaalida dhan ma hay waa dadka mooryaanta ee isbaaradii u xisay
ee dagaalkii u xisay ee bililaqadii u haystay iyo inta bililaqada haysatay ee doonaysa dadka bililaqooyinkooda ay ku jiraan iyo guryahooda ay maxay tira dhaceen yaa 19 inaan laga saarin hantida dowladda kuwa way kuwa qaylinaya ee maxay tira dowladda caayaya iyo niman sidaa u ordaya oo marram imaaraadka isku qaadaya marram maxay tira odayaal waaweyn oo maxay hayteen mas'uuliyiin ah oo la rabay maanta dadkii inay kala hagaan baa waxay leeyihiin farmaajo adigu maxay hayteen sadinimaad ku joogtaa muqdisho farmaajo wuu ku dhashay muqdisho laakiin maxay hayteen 10ka jaajkuusay halkan isdaba oriyay inta daba yaa xisaaba dhoobay bay ka yimaadeen beeralay bay ahaayeen markaasay beerihii intay kasoo qamaameen ilaahay subxaana watacaala jaanis siiyey inay maxay hayteen ay wax noqdaan oo wadankan ay maxay hayteen deemar lahay u kasay markaasay ummadii xoolaheeda saa u gurteen dabadeetna iminka way samri laayihiin waayo wixii bay waayeen way samri laayihiin waxay laqaya horaa libkicisa waxay la fadhiisan leeyihiin wixii ay barteen baanay deedayn aanay iloobi karaynin caadh bay ahaayeen saa maxay tiri guryo cidla u fadhiya xasan sheekh habeenkii la doortay waa tii adduunka ilaahay meel walba maxay tiri saa loo soo sawirayay halka uu fadhiya laga soo kaxeeyey madiinuu degana maantana turkigu guri ku leeyahay kenya ku leeyahay guryo turkigu guryo ku leeyahay imaaraadku guryo ku leeyahay muqdisho dhinac dhan isagii walaalihii iyo xaafadihiisu leeyihiin waa hanti dad waxaa dowladnimada waxay uga cararayaan sheekh shariif la mid maxay tiri intooda kale oo dhan la mid waxay dowladnimada uga cararayaan oo maxay tiri Soomaaliya inay dowlad uga dhalato ay u diidan yihiin waxay isleeyihiin bari ka maalin hantidan dadka waa leedku dacweynaya iyagii dadka kale oo jaajuusinta waa leedku dacweynaya bay isleeyihiin intaas ay u diidayaan dowladnimada balse waxaan halkan fariin uga dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan fariin uga dirayaa nimanka kale waqtigooda way soo qaateen maanta waxa waxay danka leeyihiin ma jirto idinka oo future-kii iyo mustaqbalkii ah wadanka ayay doonayaan inay waxaan ku iska kiin hor keenaan inay qarax isugu kiin dhiibaan iyo bambooyin oo saa isaga kiin hor keenaan oo aad islaysaan oo future-kii iyo mustaqbalkii halka ku baabo xasan sheekh madaxweyne ahaa meel kastaad marisiin waa tahriibisiin maxay tan waad baadeen waad hoogteen jeelasha liibeed ka buuxdeen isagaaba gabdhihii tahriibiyey jeelasha sacuudigaad ku jirteen saxarahaad ba'aysiin waa laydin qashay waa laydin dilay beerkii kaliya baa laydin kala baxay jeelasha liibeed ku urteen weli maxay teen xataa ma idinka hadla South Africa laydinku jarjarayay oo laydinku dilayay weli ma idinka hadla ajal maxay teen horta dhamaatay cidima baajin karto oo de hadda lafteeda maxay teen 2-3 waa lagu dilay laakiin sidii barigii hore madaxweyne markii saa loo dartay wato ka hadlay oo South Africa uu tagay oo maxay teen uu la soo hadlay maxay teen madaxweynaha dhigiisa ay wada hadleen sidii ariga laydin qalqalan jiray maalintii waa u dambeysay way jiraan labadii safar ku tir 3 laakiin habeen iyo maalin saas laydin qalqalan jiray wali xasan sheekh ma ka hadla wali xasan sheekh maxay teen Hindiya halkaas ay fariimo ka soo diriyeen muxuu ahaa dhalinyaro cid ka badal ku xirnatay qaarkood maxay teen say u qaylinayeen oo maxay teen u lahaayeen hana la soo gaaray ayay qabow iyo dayac u dhinteen iyo gaajo wali ma idinka hadla Liibiya Hindiya Sacuudiga ilaa maalintii la doortay madaxweyne farmaajo isaga idinka soo guriyay oo maxay teen idinka soo qaaday والمدمير كان لادهين مركا محو قبيل كأت شيء سنين قبيل كانت كهذا لسان يقضياش رقم مديضة تنلم حيه تاني فرماجة واحد هاي محوها واحد هاي سيدين نبات كتشوكتا بهاشي محيط المقدشو قضياش وين له يا ما يدين ما يدي كهذا ما يدي كذا مقدين قبلها كان لقيت تهريبينية ما كهذا له بدأ يبرق اللي بسني ما كهذا له عبد الشكور intuu sidaa isa soo taagay waa ninka dhan ee doonaya inuu Soomaaliya uu hogaamiyo oo mas'uul ka noqdo sidaa intuu isa soo taagay ayuu xaflad dhan oo loo qabtay intuu sidaa isa soo taagay wuxuu yiri aniga waxa leeyahay yiri aniga waa lay amray inaan bada iibiyo ma qofkaas mas'uul noqon kara aniga waa lay amray subhanallah waa professor waa aftahan waa afmishaarnimada muu isku difaaco sidoo ku keenay intuu mashrac dhan isa soo taagay iyo maxay tahay meel dhan oo maxay tiin cid kasta joogto inuu yiraahdo badda waa lay amra
haddii la yidhaahdo maxay tiri hal mar dadka iyo dalkaba noo wareeji oo soo saxeexi maayo ilaa caqligiisa waa kaasi xasan cali khayre awalba dumbuljudud buu ahaa wuxuu la shaqaysan jiray maxay tiri ninka xasan sheekh buu la shaqaysan jiray farmaajo isagaa isku soo caansaaray oo isku soo doortay yaa wuxuu is adkeeyaba markii gabagabadii la taagnaa 3 sane horeba isxannimay haadhe ayuu wuxuu ka bilaabay doorasho qof iyo cod dhici mayso jaajuusinta kale isaga afka u geliyay waayo khayaamoolo ayuu ahaa khayaamooti ma fahmaysiin marka soomaaliyay qabyaaladda iska daayay dadka aad maxay tahay wadamada aad u soo tahriibaysaan ee aad naftiina kusoo biimeynaysaan dadku ma fadhiisto 24 saacadood dhulkay qodayaan way shaqaysanayaan markaas tarta adiguna inta soo tahriibtid sida hadda maxay tahay daahir calasow oo kale ee carab oo kale mid xun oo kale isaguna maxay tahay Finland jooga inta waxaan ku yiri xoogaa yar cayr qaadataan qolsa u soo fadhiisataan inaad Soomaaliya ka burburisaan oo ilaahay saxariyeeyay soo dhaafiyay min gafii oo nimo shaqaysanaya oo wadankooda dhisanaya oo aan maxay tahay qashinka ka guraya wadooyinka yaa system ay samaysteen oo maxay tahay bini'aadantinimo leedin ku caawinayo yaa markaad qaadataan aad qol dhexdii inta soo fadhiisataan ka burbursankiina hebelow farmaajo dan iyo heelatoona idinka maxay tahay kama laha wadankan guryana ka dhisan maayo mushaharkiisa ayuu siiyaa masaakiinta iyo agoomaha cid kasta way ogtahay wax qarsoona ma aha musuq maasuqna bari buu ka yahay ma fahmaysiin laakiin waxa uu ordaya oo u dagaalamaya oo maxay tahay uu doonaya maxay tahay waa idinka inuu dalkiina iyo dadkiina idin badbaadiyo oo aad noloshay ku noolaataan laakiin intiina badani ma garanaysiin Soomaalida inta badani waa wadaniyiin way garanayaan laakiin inta kale ma garanayso qabiil ayaa ku qafilan qabiil meel ku geyn maayo qabiil hadduu wax ku tarayo Liibiya iyo Hindiya iyo Sacuudiga ka soo kaxay laha 24 saacadood miidiyaha ay taagnaa inagoo barooranaya hana la soo gaadhoy waxaan daawanay oo aragnay gabdho yaryar ka waran oo maxay tahay gabdhihii uu dhoofiyay gurguurtay xasan sheekh gabdhihii uu dhoofiyay gabadh yar oo maxay tahay gabdho yaryar oo nimanka carabta hay u shaqeynayeen oo guryahooda joogeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo laweyska gashanayaan intay maxay tahay soo qaadeen ay biyo guridayaan ku qasbayaan oo ay soo barooranayaan YouTube-ka maxay tahay soo dhigeen oo Facebook-ka soo dhigeen muxuu uga hadli waayay markaa damiirkiisa muxuu uga hadli waayay qabyaalad baa idin dhagtirtay Soomaaliya qabyaalad iyo qurun iyo qashin ayaa idinka buuxa qaarkiin Soomaali ma wada aha Soomaalida intooda badan dad nadiif ah weeyaan laakiin inta qurunka iyo qashaabirka qabyaalada ka dal wareegaysa ayaan sheegaya qabiil intaas sheegaya qabiil wuxuu ku tarayaa malaha ee wadankaaga dhiso oo dalkaaga dhiso oo dadkaaga dhiso inta sida isla leediin moobelo wadamada dhisteen aad isla qancinaysiin oo kuwa kale halka jooga ku soo hiikicinaysiin idinku waxa la xaq haysan in jirinin iimaanka la hedi ku soo celiyo qabyaaladna waxa la waxay idin taraysan malaha faa'iidana intiina badan mooriyaan baatiin isbaarada iyo quranka baad u xiisteen maalin walba dhalinyaro la dilaa maalin walba saraakiil baa la dilaa waxaas oo dhan iyaga ka dambeeya waa ka waxa limeed maxaa dambeeya ka la siisido Umar Finish 3 isbuuc ka hor bay ahayd markuu hadlay oo yiri hadday idin fadhiisan talaabo la idinka qaadaya maanta ayaa dil maxay tani Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka badbaadiyay waxa oo dhan iyaga ka dambeeya sixir bay sitaan askartiisii bay u soo adeegsadeen waayo lacag imaaraadka laga Kenya laga keenay askari maxay tani askartii iyo maxay tani dadka mooryaanta askarta ma hay dadka mooryaanta abay u adeegsanaya oo siinaya haye nin mooryaan oo $100 la siiyay ama $50 la siiyay leeyahay qofka hanqalka ku soo dhufo taa ku dhufanaya laakiin naftatan ilaahay baa maxay tani abuuray maalinteed ma nahayna dhiman mayso shalay bay cuneen yirisow ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha naxariisto jannatul firdaws a'laaha ku irsaqay sanad kama soo wareegin maantana waa maxay tani waa waxa weeyaan waxa dil ka badbaaday maxaa Umar Finish qof alla qofkii wadaniyad iyo waxaan ku iri in yar oo dhiiga oo maxay tani waqiyad dhiiga wadaniyada ay ku jirto lama rabo in adduunka ku sii noolaado nafta la dhaafinaya
naftaa la dhaafinaya nafta ee soomaaliyey dhalinyaroy ka kaca fadhiga ka kaca waddankiina haddaydin dhisan haadhe weligiyaan alihiisaasun baad u silicsanaanaysaa faa'iido kalena ma lihidin adduunka ilaahigay waddankiina haddaydin dhisan faa'iido kale ma lihidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته